السلام عليكم سوري وذا صاحبيال ومرك لي مقال عصب مقال كنا maanta waxaan kaga hadli doonaa oo diiradda saari doonaa sida loo sameeyo WhatsApp linki waliba VIP ah waxaan ku aragnaa WhatsApp-ka linkiyo qurux badan oo dad ay diyaariyeen laakiin wali ma isweydiisay halkee laga sameeyaa halkeena dadkan ka keenaan inta badan linkiyo noocan oo kale markaan u baahanahay waxaan isticmaalnaa linkiyada ay dadka sameysteen soo koobiyana kadibna lambarka ayaan ka bedelnaa iyo magaca balse maanta waxaan ku tusin doonaa mid aad adigu gacantaad ku sameysan doonto oo VIP ah kuwii hore ka qurux badan haddaba marka hore kaasi hor dhici maaye ku soo dhow muuqaalka faahfaahsan kanaalka dadka cusubtayna subscribe dha videogana like gare haddaba marka hore si aad u sameyso linki waxaad iman doontaa oo soo furan doontaa browserka telefoonka ku jira ama Google Chrome-ka doonta kadibna halkaas sare waxaad ku qori doontaa Facebook VIP account wanaga waxaad isweydiinaysaa maxaa laga rabaa Facebook VIP account Facebook VIP account muuqaal hore kaga soo hadalnay waa style-da loo isticmaalo linkiyada iyo bio account-ka waxaas loo isticmaalaa laakiin nagu halkay dadkan ka isticmaalaan ayaan idin tusi doonaa waxaad ku dhifan doontaa linkigan u sareeya ayaad ku dhifan doontaa markaad Facebook VIP account soo qorto linkiga u sareeya markaad ku dhifato page-ka noocan ayuu ku keeni doonaa xoogay background-ka dambe dad ayaa yara qayliya waan idin raali gelinayaa hoos ayaad u degi doontaa hoos markaad u degto halkan waxaad ka aragtaa style-ada kala duwan ee quruxda badan waxaan oo dhan waad isticmaali kartaa linki ahaan ayaad u isticmaali kartaa haddaba aan mid kuu sheegay dadku waxay isticmaalaan linkiyada kuwan ay u adeegsadaan haddaba xabadan u horey tan laba inoo soo qabo waad xajin doontaa inta soo xajiso ayaad wax kale sameynayso xajini kadibna koobiyada oo gacantaada soo marin gacantaada markaad soo mariso kadibna koobiyada oo waxa tagi doontaa note ayaad iman doontaa ama meel aad ku save gareysatid oo aad ku hagaajisatid tusaalaan hadda doontan WhatsApp-ka dhaxdiisa waad ku sameyn kartaa laakiin hadda anigu waxaan rabaa inaan ku sameeyo note-kan dhaxdiisa kadibna halkaas aad best ku odhan halka markaad best ku tira halkan ma ujeedaa ay ku qoran tahay love you halkaas ayaad waxaad gelinaysaa lambarkaaga ayaad gelini waad ka masixinta kadibna haddaba linkiga ayaa noo hadhisaad u sameyn lahayd linkiga ugu gaaban ee isticmaali kartid waxa weeyaan waxaad ku qori doontaa wa iyo mi ayaad qori doontaa kadibna slash markaad qorto plus ayaad oran doontaa 252 63681 lambarkeed saa u gelini lambarkii markaad saa u gelisid linkigan intaa horeysa mi /plus intaas waniga halkan hoose ku soo dhigay intaas aad qori doontaa inta markaad qortid xagan aad u soo degi hadana xagan aad u soo degi halkan waxaad ku qori halkaas iyadu kala bari bartaas magaca waxaad ku qori doontaa inta saa dhahdid save me kamil intaasoo kale ku qori inta markaad ku qortid waxaad oran mar kale koobiyad oran intaad xajisid koobiyad saa wada oran koob markaad saa tirayd wad ka soo bixi WhatsApp-keedii mani inaad koobiyisidaada iman uu kugu save gareysnaado kadibna saas ku koobigareed sidaas ayuu linki dhameystiran ku yahay kadibna intaad koobi tirayd midna ku sheegay qoraalada iyo waxa doontid waa raacsan karta koobi inta tirayd ayaad xagan iman kadibna WhatsApp-kaagi ayaad ku koobi gareeyay WhatsApp-keed ku koobi gareyn kadibna kaladka dad baanta wad ka bedeli kartaa koobiyad oran kadibna saasad ku siini staad ku saarbi haddaba balan eegno sidoo qurux badnaado wow hadda linki aad u qurux badan ayuu noqday runtii linki qurux badan oo aan sooranin linkigan halkan ay dadku ka sameeyaan haddaba dadku halkaas fudud ay ka sameeyaan linkiyada quruxda badan ee aad aragtideed mar walba ku aragtid WhatsApp-ka maanta kadib waxaan maleynayaa inaanad cidna oran doonin ibar ama aanad linki dambe soo koobi gareysan doonin muuqaalkan
haddaad ka heshay sii share garee oo saaxiibada la wadaag videogana like garee haddaad nagu cusub tahayna hadda nagu soo biir adigoo kanaalka subscribe dhahay intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan tiga tagayaa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh